kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka. Qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah sawir shaki badan abuuray oo lagu dhex arkay Villa Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu eedeeyay in uu dan qoys u bedelay dantii qaranka. Masar iyo Eritrea oo ka quustay Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay xiise ka taagan Villa Soomaaliya. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal ku falanqayn doonaa warkan, balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. aynu ku horeyne sawir shaki badan abuuray ayaa lagu dhex arkay gudaha Villa Soomaaliya xilli madaxweynaha qaranka lagu eedeeyay dana qoys inuu ka shaqeynayo halkii ay ahayd in dan qaran uu ka shaqeeyo. sawirkan ayaa noqday midka ugu hadalhaynta badan saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada, iyadoo dadka siyaabo kala duwan ay uga hadlayeen in sawir ceenka lagu dhex arko madaxtooyadii qaranka oo ahayd hoygii ummadda iyo halkii dadka loogu adeegayay. saacadihii lasoo dhaafay waxaa aada loo falanqeynayay sawir lagu arkay madaxtooyada kaas oo ay qabteen kaamirooyinka xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamse iyo guddoonka baarlamaanka federaalka ay madaxtooyada kusoo dhaweynayeen guddoomiyaha guddiga midowda Afrika Maxamuud Cali Yuusuf. sawirka la arkay wuxuu ahaa mid muujinaya qoyska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo darbiga ku xardhan, waxaana sawirkaasi u abuuray hadalhayn xoogan oo la xiriirta in dalkii uu isku bedelay mid qoyska madaxweyne Xasan kaliya wax lagu qabanayo. sawirka ayaa sidoo kale waxa uu ahaa mid dadka qaarkood ay ku tilmaameen mid ka turjumaya danaha madaxweynaha ee qaranka iyo inuusan si hufan u adeegaynin bulshada Soomaaliyeed. sawirkaasi wuxuu ka kooban yahay 3 sawir oo isku dhagisan hal boor kuna daabacan darbiga weyn ee madaxtooyada, kaasoo qof kasta oo u socda xafiisyada madaxtooyada uu soo hormarayo, iyadoo madaxda laga duubayay sawirro iyo muuqaalo ayaa sawirkan ay qabteen kaamirooyinka, taasoo dhalisay hadalhayn xoog leh oo ka turjumaysa shaki dadweynaha ay ka qabaan qorshaha madaxweyne Xasan ee qabashada doorasho xor iyo xalaal ah iyo suuragalnimada inuu xilka wareejiyo haddii xitaa laga guuleysto. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli madaxtooyada dhismo cusub lagu sameeyay, dalkuna uu dagaal ku jiro, shaki doorashaduna uu sii xoogeysanayo, iyadoo muddaxileedka madaxweynaha uu sii dhammaanayo. sawirka ayaa haddana waxaa kasoo dhex muuqday labada xaas ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo isagoo dhexda uga jira, taas dadka ku micneeyeen inay ka dhigan tahay in dalku madaxweynaha afgembi uu kula wareegi rabo. hadalhaynta shacabka ka timid sawirkan ayaa muujinaysa cabsi laga qabo in madaxweyne Xasan uu bilaabayo keligii talisnimo, isla markaana aysan muuqan astaan muujinayso inuu diyaar u yahay qabashada doorasho la mid ah midii uu markii hore xilka ku yimid farmaajada uu kaga guuleystay. dad badan oo aragtidan qaba baraha bulshadana ku faafiyay waxay aaminsan yihiin in aan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah oo madaxweynuhu uu sheegay inuu qaban doono, iyagoo ololihiisa u fasirtay inuu damacsan yahay inuu sii joogo xukunka inta xaaladdu noqonayso sida isagu uu rabo. qaarkood waxay la yaab ku tilmaameen sababta dal dagaal ku jira madaxtooyadiisa loogu sawiray qoyska madaxweynaha, halka qaarna ay su'aal geliyeen xigmadda ka dambeysa bumbuuninta qoyska madaxweyne Xasan oo ay sheegay inay tahay mid ka turjumayso in dalku uu ku jiro xaalad u muuqata keligii talisnimo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa si weyn lagu eedeeyay in uu dana qoys ka shaqeynayo, iyadoo xilalka inta badan dowladana uu ku dhigay qaar u muuqda in ay tahay in uu dadka qaarkood qoys iyo qaraabakiil wax ugu magacaabay, halka xubnaha qaarna ay xidid hoos leeyihiin qoyskiisa, taasoo ah eedeynta ugu culus ay jeedinayaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaybo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed, kuna tilmaameen waxaan la aqbali karin marka loo fiiriyo in madaxweynihii jamhuuriyadda uu si gaar ah u maamulanayo danihii dadka ka wada dhexeeyay. sidoo kale danta qoyska ka sokow dana dhaqaale ayaa jira oo madaxtooyadu ay si weyn ugu sameysay dhulalka iyo boobka hantida qaranka, taasoo su-aal weyn gelisay aaminaadda dowladda iyo in ay si hufan shaqo u qabanayso. sidoo kale xubnaha mucaaradka ah ayaa qaarkood sheegay in ay si weyn u qorsheynayaan in ay ka hor yimaadaan damac walba oo Villa Soomaaliya ay ka leedahay nidaamka dowladnimo ee dalkan Soomaaliya, si gaar ah arrimaha doorashooyinka iyo xeendabka kale ee madaxtooyadu ay ku doonayso in ay si gaar ah dalkan u sii joogto. waxaana madaxweyne Xasan iyo dowladiisu si weyn loogu eedeynayaa in ay dana qoys iyo sidoo kale dana qabiil ay isku dhex wadaan, taasoo liddi ku ah danaha qaranka iyo dadka Soomaaliyeed. cabdiraxmaan shukuur waxa uu yiri qabiilku waa abtirsiga reerka aad u dhalatay
qabyaaladuse waa in aad aaminto in tolka inta kale ka fiican yahay, necebna u qaado qabiilada kale laguguna cabsiyo in ay col ku yihiin ama ay cadkaaga cunayaan. qabyaaladu waa cudur caqli, diin iyo akhlaaqba ka maran, waana astaanta lagu garto ummadaha fashilmay iyo bulshooyinka saaqiday ee fucood ka haray. ummad haddii ay haysato dowlad u damaanad qaada amni, xasilooni iyo xuquuq siman, u fidisa cadaalad iyo adeeg bulsho, una difaacda xuduudaha qaranka, qabyaaladii qaaqle uma xiise qabteen. waxaa la ka sokow in la samata bixin karaa in la helo tiro dad wax ku ool ah oo la yimaada aragti, awood iyo abaabul midaysan, xushana hoggaan hilaal qaran leh, maskax furan oo curiya mashruuc qaran oo aan kaga gudubno kala qaybsanaanta, dhisanna dowlad sharci, cadaalad iyo sinaan ku dhisan, taasoo kaadirkeeda lagu xulan karo aqoon, xirfad iyo aragnimo. nafhur ayuu qarankan ku dhismaa, qiimihiisuna waa qabjabiya, ayuu yiri marka uu Cabdiraxmaan ka hadlayay heerka qabyaalad iyo qabiil ee ka dhex jira madaxtooyada. ugu dambeyntiina Masar iyo Eritrea ayaa soo saaray go-aan adag xilli dowladda federaalka la rumaysay inay ka baxday xiriirkii iyo wada shaqeyntii saddexgeesoodka ahaa ee dowladahaasi. Eritrea iyo Masar ayaa diiday in wadamada aan xeebaha lahayn ay ka qayb qaataan sugidda amniga badda cas, iyagoo ula jeeda Itoobiya. waxayna sheegeen in maamulka marinbiyoodka ay tahay inay hogaamiyaan dalalka ku teersan badda cas. go-aankan ayaa laga shaaciyay war ka soo baxay madaxtooyada Masar kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cismaan Saalax uu booqasho ku tagay Qaahira. diidmada Masar iyo Eritrea ayaa imaaneysa iyadoo dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ay u socdaan wadahadallo ku saabsan sidii Muqdisho ay marin bad u siin lahayd Addis Ababa kadib markii labada dal ay ka heshiiyeen khilaaf u dhexeeyay. afhayeenka madaxtooyada Masar Maxamed al-Shanaawi ayaa sheegay in Cismaan uu fariin uu ka siday madaxweynaha Eritrea Afwerki uu gaarsiiyay madaxweynaha Masar al-Sisi ayaa dhankiisa xaqiijiyay in Masar ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka labada dal. waxaa kale oo uu tilmaamay in wadahadalladu ay diiradda saareen xasilloonida gobolka iyo iskaashiga dhinaca amniga. kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Badr Abdelaat iyo madaxa hay'adda sirdoonka guud ee Rashaad Xasan ayaa sidoo kale looga hadlay amniga badda cas. booqashadan ayaa timid kadib markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali uu dhowaan khudbad u jeedinayay baarlamaankiisa uu ka jeediyay kuna tilmaamay marin u helidda badda cas in Itoobiya u tahay arrin muhiim u ah jiritaankeeda, balse meesha uu ka saaray in Eritrea ay ku duulayaan ama awood ay ku raadinayaan marin badeed. waxa uu carabku adkeeyay in xilli kasta ee lagu saleeyo isfaham iyo mabaadi'da suuqa, isagoo ka digay in haddii aan arrintan xal laga gaarin ay mustaqbalka sababi karto caqabado badan oo gobolka kusoo furma. saaxiibayaal, waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. nabadgelyo.